waxaan joognaa saldhigga booliiska degmada Dhuusamareeb caasimadda Galmudug waxaan rabnaa inaan in yar ka warbixino shil 24kii Oktoobar 2023 ka dhacay Xamar nin muwaadina oo ku dhintay Xamar oo uu dilay askarigan garabkayga fadhiya oo lagu magacaabo Xasan Nuur Artan فلله الحمد إذا كبوليس كمال كستو جوجان بدي جرى كليه واسكو حرام وايه وهل شقاء وهل سيستما شقاء إقبتان دي وحواي مدي حل ميلا وده ياديسو runtii shilkaas markuu dhacay sida looga ogaaday degmada Hodan oo ka dhacay yaa looga ogaaday dhamaan Soomaaliya gaar ahaan caasimadda Galmudug aan uga ogaanay oo nala soo socodsiiyay waxaan ilaa markii ka howlaneen sidii barnaamijkaasi oosan fashil u noqon lahayn oo loo qaban lahaa qofkii shilkaas oo ka dhacay Xasan Nuur Artan oo 24kii Oktoobar 2023 shilkaas gacantiisa ka dhacay oo tarabuun ka geystay degmada Hodan runtii safar dheer oo soo galay kadib shalay ahayd 28kii bishii Oktoobar 2023 waxa lagu qabtay Mareer Gur oo ka tirsan caasimadda Galmudug Dhuusamareeb kontaroolada laga ilaaliyo kontarool kamid ah لله الحمد وحرجينا إن أسجنا وهي عليسه لسوق الدون هذه وحلس من دونان قفك مواد كهاي بنتنا وعدالة للدونه إن شاء الله ما أنت وحرجينا إن أنت عاصمة دي مقدشو إن أنا تبني إن شاء الله أنا قد مرة البابا واجب تهاي شيلكم ياشو كبعه إن دب لوجو عليو هدي اللي قبضو قفكي شلكاس كدعي عيسى نورنتي ومحسن هاي مركي لقبتيسي وهو شاغي فرعدله إن شلكاس أساق كدعي وأساق حقيس كيمالي أنا غانا دي وحواي دقمالي شلكاس كدعي روما إن ندبقو علي نمانتي دي على إدمو سي حلكاس وقدعدو أساقنا أو عدالتكو هلو موادن كي كلا شلكاس وقارينا oo cadaalad ku helo aad iyo aad u mahadsantiin saxaafadda iyo dhamaan ummadda dhageysanaysan oo mahad celinaya runtii waxaan leeyahay mar walba Soomaaliya meel joogtaba in laga wada shaqeeyo waaye waxyaabaha dhacdooyinka noocaas oo kala dhacayo in isku mid uga shaqeeyno runtii shacabku inay gacan ka geystaan mar walba waxaas dhacaya ayaga goob joog u yihiin way arki karaan inay shiralka noocaas oo kala markay dhacaanba ay gacan ka geystaan si isla markaasba looga falgalo ciidamada ammaanka goobtaas ku sugan ay ugu guuleystaan qabashada falkaas shacabka anagu baaqeynaa meel kastoo joogaan haddii yihiin kuwa nala joogo oo caasimadda Galmudug joogo iyo haddii yihiin kuwa meel kale jooga intaba shilalkaas oo kale markay dhacaan in la iska gacan siiyo laga wada howlgalo la isla qabto ciidamada ammaankana lala wadaago meelaha ay ku sugan yihiin dadka shilalkaas geystaa mar walba aad iyo aad u mahadsantiin